kusoo dhawaada jaamacadda Boosaaso. Jaamacadda Boosaaso halkaan waxa loo wada qeylay inay tahay hoyga waxbarashada Puntland halkaan loogu wada qeylay akhyaarta halkan riwaayada soo jeedinaysay iyo kulliyada halkan isugu faanay intaba wax ka wada tirsan yihiin hadda departmentiyada isugu faanay halkan sarbeeb horta waa la soo faanay iyo mahmaayo toosna waa isku duqeeyay laakiin waxa keenaya waa madadaalada iyo farxadda caawa halkan ka jirta ardaduna kulliyadu wada halba haweeye akhyaarta halkan riwaayada kusoo jeedinaysana iyaguna wixii oo riwaayada ayay noo sheegeen oo micnaheedu ay tahay ardaygu haddii uu waxa weeyaa wax barto wuxuu gaaraa meel sare riwaayadaas uu dhigan jirnay baa hada jeer waxa macallimiintu nagu dhejineen man daraba al-ula sahla layaali qofku haddii uu habeeno badan soo jeedo wuxuu gaaraa meel sare ama qofkii rabaa inuu gaaro meel sare habeeno badan soo jeedaa waxaan kaloo aad u xusuustaa iskuulka waan dhigan jiray dugsi dhexe gabay macallin qiimo badan noo dhigay gabaygaas wuxuu ahaa العلم صيد وكتابة قيده قيد سيولك بالحبال واثقة فمن الحماقة أن تصيد غسالة وتفكها بين الخلائق خلقة معناها وتكوضع علم معناها وحويا وأغارسي حرق الوصف حلونا وحويا وقرآن كويه مركا دقنيمة كوي لما جرتو قف انتو أغارتغو oo deera soo ugaarsado kadibna markii uu ku soo tabaco oo meeshu rabay keeno misna sii daaya waa doqoniin marka waxa laga wadaa qofka hadduu cilmi barto cilmigiina uu sii daayo waa dhibaato waxa aad bilowdan ha ka tagin waligaa waxa aad bilowdo ha ka tagin haddaa wax bilowdo dhammaystir ilaahay caafimaad buu ku siiyey caqli buu ku siiyey cilmi buu ku siiyey toddaa haddaa wixii waqtiga laga faa'iidaysto waqtigu waa muhiim waqtigu waa waxa kaliya oo aan la kala gadan karin la soo celin karin la amaahan karin xiwadna lahayn xiwad waxa laga wadaa macnaha saaxiibka ma dhihi karto shalay baa 2 saacadood wax akhrisan lahay 2 saacadood maanta ii bedel ma dhici karto waxa dad aragteen oo buugta aan dhigano diyaaradaha adduunka ka shaqeynaya cilmiga dunida ka socda tiknoolajiyada waxa dad keenay qof kasta wuxuu haystaa 24 saacadood buu haystaa adiguna 24 saacadood baa haystaa ka faa'iideyso Albert Einstein ninkii la oran jiray baa markuu dhintay bay gaalada waxay dhaheen ninku dadka kale uu ka caqli badnaaye bal inta la qalo maskaxdiisa hala fiiriyo markii la qalay oo maskaxdiisa la fiiriyay wax loogu tagay maskax qof caadi ah maskaxda marka qof kasta saaran capacity-geeda marka laga sheekeynayo wax caadi ma aha wax caadi ah ma aha hadda waxa lagu leeyahay maskaxda dadka bini aadamka waxa lagu qiyaasaa inay tahay 1 kiilo iyo 25 gram baa lagu qiyaasaa inay tahay culays ahaan jirka bini aadamka waxay ka tahay 2 kiilo iyo bar bay ka tahay macnaha waxay ka tahay macnaha 2.5 bay ka tahay macnaha qofka culayskiisa marka la qaybiyo macnaha 2.5 bay ka tahay percentage bay ka tahay marka maskaxdaasi 22 decimeter kaliya oo kamid ah 22 decimeter oo kamid ah waxay qaadaa 20 milyan oo buug bay qaadaa macnaha 20 milyan oo buug bay qaadaa oo waliba culayskeedu uu weyn yahay marka qof bini aadam buuxin kara hadda dadka aan ka sheekeynayno sida Albert Einstein iyo 10% bay ka faa'iideysteen meelaha maskaxdooda ama waxa la yiraahdo kama faa'iideysan marka ilaahay maskaxduna siiyay maskaxda xirin awood uu ku siiyay hadda gacantaadu hadii ay ku xanuunayso halka isaga wadato waa ku xirmaysaa shaqeynayso maskaxduna waa sidoo kale hadii maskaxda aan laga shaqeysin maskaxdu shaqeynayso wax kasta waa la baran karaa adduunka qof damiini ma jiro qof damiini dunida maxaa ku dhama jiro dadkan hadda lagu leeyahay horumar bay gaareen dunida waa hore Newton iyo dadkaas oo hadii laga sheekeeyo iyo ninkan Chinese oo Jack Ma iyo dadkaas oo laga sheekeeyo waa hore waxbarashada kuma fiicnayn
واجد دمنا وحي قارن هرمر ترى بدن بيقارن marka أنا waxaan idin oran lahaa anoo halkaan badan hala dadaalo isku dayana hala sameeyo balantana waxa weeye in waxa weeye la dadaalo kulliyaduna waa idin shaqeynaysa har iyo habeen khayrana uu jooga xafiiska uu furan yahay markastaba waxyaabaha aad ka rabtaan iyo talooyinka iyo wixii kale oo aad ku soo biirinaysaan xataa way idin furan tahay kulliyadu aad baan idin salaamay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.